وادي سلام صاحب yaal waxaa halkan sii wada doonaa taxaniin oo socda magaciisa waa steel shining waxaana wax ka sameeyay qayb hore fadlan haddii asoo daan janaal dib ugu laabay soo daabo inta muuqaal guda galin waxaan ku xasuusinayaa inaa muuqaalka like saartid saaxiib nagu cusub haddii aad tahay subscribe soo janaalka gambaleelkana furo qaybtan waa qaybtiisii labaad habeenkii markii la gaaro waxaa arkaynaa una si tartiib usoo dhakanayso sida usoo socod waxay qaadanaysaa dhalada cabitaanka waxayna gashanaysaa funaanadee wadad hoosteeda markay baxaysa dhaad waxay arkaysaa midkood siyoon la dhaho oo meesha fadhiyo markay naxd waxay ku dhahaysaa maxaa mugdigan ku fadhiisiyey waa iga nixisee kadib nalka ayay daaraysaa asagana meesha fadhiga ay wax ku cuni rabay waxaynu sheegaysaa inuu miisku cuntada wax ku cuno kadib asagana miiska ayuu soo fadhiisanaya ayadoo sii bixi rabto wuxuu ku dhahayaa cabitaanka qarsanaysa dadka waaweyn ayaa loogu talagalay anaga u baahan mid kale ku bedelo una ayadan shaxdeeda ay la fahmay mid kale ay ku bedelanaysaa waxayna aadaysaa qolkeeda qolkan waxay wada joogeen taay waxay ku dhahaysaa cabitaankan uu cabno maadaama ay tahay sanadkeygii 20aad maalintiis koowaad oo labadeena aan wada joogno una ayadana koobkii ku wada cabi lahaayeen way soo ilowday waxay bilaabayeen dhalada cabitaanka inuu marba qof ka cabo markay cabitaanka soo cabaan way soo raacayaan waxayna soo aadayeen banaanka oo baraf badan ka da'aayo kadib waxay bilaabayeen inay banaanka soo ordaan oo iskaaga baashaalaan ayagoo faraxsan kadib markay deelaan wax iska jiifanayaan wadada dhexdeeda oo baraf saad ugu socdo maalmo kadib waxaa la gaaraya waqti uu bilaabi lahaa jaamacadda awoogiisa ayaa keenaya busteejada baska taa intuusan gaariga ka degin awoogiisa wuxuu soo bixinayaa lacag taana lacagtuu diidaya wuxuuna ku dhahayaa aniga lacag waan haystaa awooga wuxuu ku dhahayaa waxaas ma jiraan ay qaado oo dhar cusub ku gado xataa iyadaada wejigeeda waxaan ka dareemay inay murugeysnayd sababtoo ah ma awoodno inaan kuu gadno dhar cusub oo isku toosan maalintaada koowaad ee jaamacadda jaakad qurxan iskaaga gado marka magaalada joogto waxaa loo baahan yahay inaad si fiican u labisatid marka hayga diidin kistaan wax ku gada leh taay markuu hadalkaas maqlo oo ka qaadanaya lacagta wuxuuna ku dhahayaa marar badan oo kusoo booqan doonaa awooga wuxuu ku dhahayaa taas looma baahno lacagta lay kaa khasaarayso kaliya waxbarashada lay xooga saar walaalkaada mar walba soo bac oo la soo hadal waadaaday hadda iska bax orod kadib taay asoo boorsadiisu wuxuu imaanayaa busteejada baska kadib waxaa fariin usoo diraysa uun markuu arko wuxuu imaanayaa uun waxayna ku dhahaysaa intaa kugu sugaa waxaan u malaynaya in tareenka ay raacaysid aniga waa oga inaa iga codsatay inaa inta imaan laakiin waa murugoon lahaa haddaan ku dhaweynin haddana waa noo soo jaray labada tikid si aan kuu sii dhaweeyo kadib labadooda tareenka ay soo raacayaan taayna waxaa ku dhahayaa saama kugu fiirsan kari busteejada ugu horayso markii la gaaro ayaan ka degaynaa kadib gurigaagan kugu celinayaa ma u adkaysan kari adigoo keligaa laabanaayo uuna waxay ku dhahaysaa adiga keligaa socotaay ani maxaa ii diidaayo inaa keligii aan socdo taas wax dhib ah ma lahan haddana hal saac ayaa saa nooga khasaartay intaad doodaynay waqti badan ma hayno marka madax adeegan jooji kadib taleefonka ayuu ka qaadayaa uun wuxuuna taleefonka kusoo dejinayaa application heesaha wuxuuna ogelinayaa akoontiga ku lahaa wuxuuna ku dhahayaa haddii aad isticmaalaysid aniga dhinacayga aan ka arkayaa waxaana wada isticmaali karnaa hal mar labadeena waana wada dhegeysan karnaa hal mar heesaha ku jiro markaas waxaa wada dareemi karnaa inaa wada joogin oo kale uuna waxay ku dhahaysaa waa wax fiican kadib sawir ayay wada galayaan kadib busteejada kale ayuu istaagaya waxayna imaanayaan ayagoo ordayaan meel cuntada lagu cuno taana wuxuu weydiinayaa waqti uu diyaar cuntada naqanaayo taana waxaa loo sheegayaa in hal sac ay qaadanayso cuntada diyaarinteeda kadib uuna markay aragto inay macquul ahayn in meeshan ay wax ka wada cunaan uuna daahay taay waxay ku dhahaysaa waa inaa baxdaa waa daaday waana maalinteeda koowaad ee jaamacadda intaa ku kala haraynaa taayna waxaa ku dhahayaa waa igu adag tahay inaa adiga keliya ku diro uuna waxay ku dhahaysaa taas dhib ma lahan aniga waa ii fududahay waxaana laga yaabaa inaa aqbalaad aan ka helo jaamacad adiga kuu dhow ama waxaa laga yaabaa inaa waayo wixii dhici doona aniga ma ogi noloshan xaalkeeda wax iska naqatay bariga dhexe taayna waxaa ku dhahayaa been kuuma sheegayo waan waalan rabaa kadib hab ayuu siinaya wax yar kadibna uuna waxaa loo soo dirayaa aqbalaad jaamacadda markay aragto waxay u sheegaysaa taay in la aqbalay labadooda waxay bilaabayaan inay farxaan ayadan waxay ku dhahaysaa jaamacadina wax yar kala dheerin jaamacaddiisa taay waxaa ku dhahayaa taas muhiim ma ahan hadda waa inaa faraxdaa kadib labadooda dabaaldogooda ay sii wadanayaan maalmo kadib uun jaamacadda ay bilaabaysaa kadib gabar ay isku kursi noqonayaan gabadhi waxay ku dhahaysaa aan isbarono aniga magaceyga waxaa la dhahaa naari uuna waxay ku dhahaysaa aniga uunaa lay dhahaa adiga kuriska inta miyaa afdhiisan doontid naari waxay ku dhahaysaa aan reer siyola adi intay ka timid uuna waxay ku dhahaysaa magaalada noo dhawaan deganahay waxay noo jirtaa 20 daqiiqadaa bas raacdid uuna gabadhaas ay saaxiibo noqdeen dhinaca kale taay asagana jaamacadda ayuu bilaabay xisooyinkiisa ayuu qaadanayay taay uuna markay waxbarashadu usoo dhammaato habeenkii ay taleefonku wada hadli jireen maalmo kadib jaamacadda markii la yeerinaya ardayda jaamacadda maba imaan gabadha uuna hadda dhow ay saaxiibo noqdeen jaamacadduna iskaaga tagtay uuna markay saaxiibteed imaan weysay fasalka dhan cidli caajis oo la noqday kadib markay xiisada usoo dhammaato waxay sawiraysaa geedka jaamacadda waxayna u diraysaa taay waxayna ku dhahaysaa sawirkaada ii soo dir adigoo geedka jaamacadda ag taagan saa'id ayaan kuuga xiisay markay xiisada kale bilaamo rabto uuna xiisada dhan way kasoo tegaysaa waxayna soo raacaysaa baska aado taay magaaladiisa si esbras ugu tagto taayna uu soo jawaab waxaanu ku dhahayaa hadda meel kale wax ku baranooya jaamacad markaa tago ayaan kusoo dirayaa sawirka kadib baska meesha rasmi ku keeno way kasoo degaysaa waxayna fiirinaysaa saacad taleefankeeda waxayna isdhahaysaa taay xiisadiisa 2 sac kadib ayay dhammaanaysaa kadib fariin ayuu qoraysaa waxayna ku dhahaysaa markaa meesha soo dhamaatid isoo wac kadib uuna waxay imaanaysaa webiga haan ee jecleed hadan fariin kale ayuu qoraysaa gormay dhammaynaysaa xiisada asagna fariin kale ayuu soo qoraya waxaanu ku dhahayaa maanta waxaa noo yeelan xiisooyin kale oo dheeri ah banaanka jaamacadda marka waxay dhammaanaysaa ilaa 4 saacawa markaas jaamacadda too soo aadi karaa uuna asagna way kaniyi jabto waxayna soo jaranaysaa tikid bas aaday tuulada kadib baska tuulada ayuu keenayaa markay kasoo degto waxaa banaanku sii sugaya aabaheeda markay u timaad waxaa gadaal kasoo hadlayso qoftii ay aabaheeda isjeclaayeen waxayna ku dhahaysaa intee aadna aan kasoo casheena kuligeena jawi kale aan soo wada qaadane uuna markay warkaas maqasho waxay ku dhahaysaa waxaas ma rabo waan daalanahay wayna kasoo tegaysaa gaariga ay soo fuulaysaa haddana mar labaad ay weydiinaysaa haddii ay wax cunayso uuna hurdo ay isku sii ridaysaa iyadana aabaheedan waxaa ku dhahayaa uuna saayid usoo daashay iska dhaafa iska seexatee taay asana sabira ayuu iska soo qaadaya sabiradii ay ka codsatay ayuuna usoo dirayaa wuxuuna ku dhahayaa isbuucan dhammaadkiisa subaxdii hore ayaan kulmaynaa anigaana ku imaanayo uuna waxay ku dhahaysaa anigaa siyoolkuugu imaanaya ee iska joog kadib maalintii xigta baska ay soo raacaysaa waxayna imaanaysaa siyool kadib labadooda is arkayaan waqti dheer kadib wayna isku soo ordayaan jidka dhexdiisa ayaa hab isku siinayaan labadooda maalmo kadib
kadib una ayada tuulada iska joogto waxay arkaysaa Sion waxayna ku dhahaysaa shaqada hoteelka waran fudeed soo ma ahan markaan arko hoteelka shaqaynayo niyadda ii degto Sion waxa ku dhahayaa saas hadee tahay ma tijaabisid waxaa jiraan dhalinyaro badan oo magaaladan degan oo ka shaqeeyaan hoteelka galinkin dambe jaamacad ma fasax soo qaadatay laakiin ma waqtiga fasax ay galayeen ardayda inta joogto labada biri u dambeysay meeshana baaskiilka wareegaysay una waxa ku dhahaysaa adiga qofkii u horeeyay aad i weydi su'aashaas isbuuca ka maqanayn jaamacadda qof i weydii ma jirto oo isoo xasuustay hatta jaamacad qof isoo wacay ma jirto aabeyga xataa mi i weydiin sababtan u aadi lahaa jaamacadda mana rabi inaa ku laabto jaamacaddaas mana iga heesaniyo meeshaas Sion waxa ku dhahayaa way ku fiicnaan lahayd inaa waxyaabo kale aad tijaabisid ma rabti miya inaa si gooni u noolaatid shaka waxa iigu jirin oo aabbahaad uu ku ogaan doono inaadan isbuuc jaamacadda aadan aadin haddii aan booskaada ku jiri lahaa inaa meesha aan ka guuro ayaa meel kale madaxa gashan lahaa uun inta yarta ay ku dhahaysaa adi maxaa ka hadloosaa ma ku fahmin orod aad hoteelkaada ee soo dhaweey macmiishaada Sion waxa ku dhahaya ma ogid miya qoftay aabbahaad isjeclaayeen inay shaacisay wax sabiraaysa maanta uun waxa ku dhahaysaa waxaan sabiraaska sheegaysid maxaa waaye kadib uun guriga ay ku soo laabanaysaa waxayna arkaysaa aabbaheedii qoftiisa oo xaflad yar ku dhigteen guriga midoo ag joogta ay ku dhahayso aabbahaadii qoftiisa waxay shaaciyeen inay mardhow isguursan rabaan waana ku hambalyeynaya kadib qoftii ayaa soo aadayso uun dhinaceeda si hab u siiso uun ayada intay yaaftay ayay meesha ka ordaysaa qoftii markay ka oraday uun ayada dhan yaabi ina taag ay ka soo haraayo kadib waxay kusoo daba ordaysaa uun gacanta ay qabanaysaa uun waxay ku dhahaysaa ninkii maalin hore qolku uu imaanaya xaalkintuu ku dambeeyey gurigan waxa uu soo socday Sion si uu ugu hambalaya aabaheeda ubax ayuuna u waday markuu warkooda maqlay banaanka uu istaagaya warkooda ayuuna dhegaysanaya qoftiin waxay ku dhahaysaa ninkaas xiriirkiisa soo afjar rabaa uun waxay ku dhahaysaa oo ilaa hadda kala tagin miya ninkaas waa isla socotiin ayadan waxay ku dhahaysaa aabbahaada waxaas dhan wuu og yahay wuxuu ii sheegay marka holiisu markay u soo dhamaadaan inuu ii soo sheegi doono anina ma ka tegi kara aabbahaada uun waxay ku dhahaysaa aniga ma kula yaabayay inaa laba nin isku korwedid qoftiin waxay ku dhahaysaa adiga waa soo dartabe waa inaa u dhaqantaa sida ilmaha oo kale hadalka igu dhahaysid waa inaa ka fiirsataa 100 mar uun waxay ku dhahaysaa adiga lagaaga baahan yahay inaa waxa ku hadlaysa aad ka fiirsatid inda adeegnimadaada la yaabanahay sida aabbahiga u qiyaamoosid ayadan waxay ku dhahaysaa aniga aabbaha loofa ku ahay kii ana isku aragtayne wuu og yahay anina qofka qiyaamooy ma lahan uun waxay ku dhahaysaa adama waxa ay leedahay sidaan raba u noolaana qofna wax miiga gelin dadkoo dhan waa inay aqbalaan aabbahigan shabaqaada ma ku dhacay ma waxa u malaysay aabbahigan oo doqon yahay asagana waa qof fiican laakiin naag ada camal gaangistare ma aha weji maleyda iga tag qoftiin waxay ku dhahaysaa markan ha ahaato markii ugu dambeysay aasaan ii caydo maanta waa iska inritiri doonaa waxaas laakiin hadda waxa ka dambeeyo uma adkaysan doono hadalkaada gacan bir ayaan kuu qaban doonaa adiga uuna ayadoo xanaaqsan ay kasoo tegaysaa Sion oo banaanka taagnaay ayaa ugu caaway markay istaag weyso gacanta ayuu ku qabanayaa wuxuuna ku dhahayaa waa inaa usoo hambalyaysaa ayaga martida meesha joogtane inay kula yaabaan ma ahan waxaan qaado gudaha ku laabo uuna gacantiisa iska fujinaysaa waxayna ku dhahaysaa sida wax loo xaliyo aad ayaa ugu fiican tahay Sion waxa ku dhahayaa adiga weligaa ma weynaanaysid miya maxaa aabbaaga qofku xiriirka leeyahay ku daba dhigay noloshada gaarka waa inaa xoog saarataa waxaana ku raadinayaa shaqo adiga dhinacaagan dhaqaaq samee oo hor u soco kadib uun guriga ay ku soo laabanaysaa markay taladiisa maqashay ubaxiina hore ay u soo qaadatay kadib eedadeeda cusub ayay siinaysaa ubaxa maalin kadib shaqo ayay ka helaysaa hoteelka markay timaado waxay tegaysaa qayb soo dhaweynta kadib wuxuu siinayaa kaar qolka la iskaga furo wuxuuna ku dhahayaa qolka dharka la iskaga bedelo wuxuu ku yaalaa dhinaca midig dareeska shaqada waa soo xiran kartaa sayska aad rabtid kadib uun dareeska shaqada ay soo gashatay sida shaqaalaha kale oo kale ayaa loogu habaynayaa timaha markay dharka shaqada soo gashatay markeedii ugu horeysay ayada dhan way faraxsaneed saasay shaqadeeda ku bilowday kadib uun maalinteedii koowaad ee shaqada markay soo dhamaysay ayadoo daalan waxay u tegaysaa Sion wuxuu weydiinayaa shaqada maanta sidee ahayd uun waxay ku dhahaysaa wax yar lay adkeed shaqada laakiin waa ku soo baashaale kadibna waxay fadhiisanaysaa kursiga kadibna waxay u sheegaysaa inay shaqadan ay ka shaqay doonto weekendiga kaliya markaan baro waxaan go'aan gaari doonaa waxbarashada jaamacadda inaa sii wadi doono ama inaa iska joojin doono asaga dhan Sion waxa ku dhahayaa saas hadee tahay apply garay tababarada shaqada la siiyo waqtiyada samarka markaa tababarka soo dhamaysato oo experience fiican hesho waxaad awoodi kartaa inaa aad qaybta sare meeshan waxaana ka helaysaa meelaa seexato uuna markay maqasho hal mar ay soo boodaysaa waxayna ku dhahaysaa waa meela seexda ma ka helaa kadib tay ay ku wada kulmaayaan maqaayadii yareed waxayna u sheegaysaa inay geli rabto tababar shaqo ee hoteelka tayna wuxuu weydiinayaa waqtiga qaadanayso tababarka shaqada uuna waxa ku dhahaysaa ma hubi laakiin waxay bilaaban kartaa waqtiga samarka sanad ama 6 bilood ay qaadanaysaa tayna waxa ku dhahayaa marka tababarka waqti dheer ayuu qaadanaya uuna waxa ku dhahaysaa waxaan joojiyay waxbarashadeedii jaamacadda tayna waxa ku dhahayaa weli ma dooran miya booska ka rabtid shaqada uuna waxa ku dhahaysaa weli waxaas kuma mashquulin laakiin booska ugu horeeya ee banaan ma iska qaataa tayna waxa ku dhahayaa aniga waxaan rajeynayaa inaa hesho booska jeceshahay shaqada uuna waxa ku dhahaysaa saas hadee tahay waan weydiinayaa ayaga qaybaha shaqada banaan ee haayaan tayna waxa ku dhahayaa adiga waxa ku fiican tahay luqada ingiriiska si fiican waa u hadli kartaa dadkana waa jecesha si fiican ay ula dhaqantaa sabir gacmeedkana waa ku fiican tahay sida loo sabiro qudaarta marka qof xirfad fiican la aad tahay uuna waxa ku dhahaysaa sabir waxaas oo kale inay qaadanayaan ilama aha laakiin ingiriiska si fiican ay uga hadli karaa taasaa lagu qaadanaya haddana waxay ila tahay inay bilaabatay nolosheedii aan u madax banaanaa hal lugaa hore usii gishtay hadda waxaa shaqayn jiray weekendiga kaliya laakiin hadda wixii ka dambeeya kuuloo shaqo inaa galee noqonay taay wuxuu ku dhahayaa weekendiga kaliya lee fasax leeyahay jadwalkeenii hore isbedel ayaa ku imaanayo uuna waxa ku dhahaya marka waran haddaa kulanno habeenada jimcaha kadib wuxuu usoo dhaweynayaa meesha baska laga raaco kadib intaysan bixin ayuu shumanaya kadib ay ismacsalaameynayaan markay gaariga fuusho dariishada ay soo istaagaysaa wuxuuna ku dhahayaa waxaan ku imaan doonaa habeenka sabtida kadib gacanta ayuu qabsanaya wayna ismacsalaameynayaan maalintii xigtane uuna shaqadeeda ay sii wadanaysaa habeenkii sabtida ma kala gaaray taay tuulada ay ku soo laabanaya wuxuuna u sii socday guriga uun asagoo sii socda waxa korka arkaayo Sion asagana guriga uun ayuu socday dhinaca kale uuna aabaheeda guriga xaflad ku qabeen uuna geed meesha ku yaalay ayay ka fiirinaysaa aabaheeda markay aragto inuu mashquulsan yihiin tartiib ay dhinaca albaabka soo aadaysaa albaabka waxaa taagnaa taay oo ku sii sugayay kadib ay ka furaysaa albaabka waxayna soo gelinaysaa guriga Sion asagana marka guriga
yimaado uu albaabka soo furo wuxuu arkayaa qoftii uun ahayd oo sii xaraysanaystaay kadibna gudaha ayuu soo gelaya waxaana u imaanayso eedada ayadoo wado saxan cunto ku jiro waxayna ku dhahaysaa uun labadan beri way caatowday shaqaana ka badatay shaqadana way adag tahay siyon asagana wax soo jaraya waxaas warka ma haayay ee adig soo weydiiyey orod ayadana waxay ku dhahaysaa cuntadan si qaas ah ugu diyaariyey intoosan ka dhammaan kistan u geey kadib siyon dhinacaas ayaa laga wacayaa asagana waxaa ku dhahayaa aniga dhinacaasaa layga wacooyaa ee adigu geey markuu dhaqaaqo waxay ku dhahaysaa aniga haddaan u geeyo cuntadan ma cunayso siyon waxaa ku dhahayaa waxbaa ka cabsanaya u tag kadib xaaladeeda soo warayso kadib qoftii qolka uuna ayay imaanaysaa ayadoo cuntada u wado kadib gudaha waxay ka maqlaysaa nin codkiisa kadib albaabka ay si xoogan ugu garaacaysaa kadib irid waxaa ka furaya tahay qoftii markay aragtay yaab ayaa ka soo haraayo kadib gudaha ay wad fadhiisanayaan ayadana waxay ku dhahaysaa maxaa xiriirkiina u qariseen taayna waxaa ku dhahay xiriirkiina waxaa bilowday sanadkii u dambeeyey iskuulka aan dhammayn lahayn labadayna famil inaan murjina ma rabin hadda waxay ka dambeynaa si qaran looma baahno xiriirkiina laakiin saan waa la qabsanay uuna waxay ku dhahaysaa waraysigan badan maxaa waaye anaga waa fiican nahay horta dhulka fadhiiso kadib leyna la hadal kadib qoftii dhulka ay fadhiisanaysaa waxayna ku dhahaysaa meeshaan tuuliyar le waaye dadkan xantooda badan hadday arkaan madax xiriiskan oo guriga kusoo dhuumanayo bes waaye anigana ha ka cabsan qof uu sheegay sirtiina waana iska aamusaa horta mistim caasheen baashii yareed ee uurka laga hortagayay weli waa yeertihiin waa inuusan mustaqbalkiina qiilqiil gelin saacaan uuna waxay ku dhahaysaa horta adiga waxbaa iska dhigin inaa hooyadii aad tahay ayadana waxay ku dhahaysaa hadda waxan maa ku dhahay adiga hadda 20 sana jirtaa cunug umulcam ha iska dhigin waa inaa iska taxadartaa kadib labadoodu way soo raacayaan uuna waxay fadhiisanaysaa meel gees ah taayna oo kusoo daba fadhiisanaya uuna waxay ku dhahaysaa maanta waa ceeboowey had qoftaas aabihii isguursan rabaan aniga inuu guursado waan jecelahay laakiin qoftaas ma aqaan waxay tahay qoftaas waxay dhowsaa waxaan ku dhashay aabaay koryaankana si fiican ay ugu hadashaa mararka qaar waxaan u maleeyaa inay khiyaanooley ay tahay cuntadiisana way ilaalisaa shaqooyinkii adkaana ayadaa la wareegtay qof noocaasna aabahaygu ku fiican yahay aniga gurigaas raaxo kuma dareemooy anigan waxaan rabaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaa ugu taga gurigaas aniga waxaan rabaa inay wax wanaagsan ay dhacaan waxyaabaha kale waa iska indha tiraa hadda wax walba waa kuu sheegay taayna waxaa ku dhahayaa haddii aad dhib yara aad dareentid waa ii soo sheegi kartaa uuna waxaa ku dhahaysaa hadda kadib sidaas ayaa samayn doonaa taay waxaa ku dhahayaa aniga soo fiiri horaa ay igu dhahday markaa isoo fiirsid maskaxda ii degto kadib cabaara isfiirinayaan taayna uu shuminaya maalintii xigtayna asagoo jaamacad ka soo baxay fariin ay u soo diraysaa waxayna ku dhahaysaa goormay kulmaynaa waqti ma haysaa galabta arbacada haddaa kulan ka baran taayna waxaa ku dhahaya casharo badana ii yaalo mana bedeli kari waqtigooda imtixaanaadkana soo dhow yihiin uuna waxaa ku dhahaysaa subaxda sabdiga haddaa kulan ka baran waqtigaas fasaxa leeyahay taayna jadwalkiisa imtixaanaadka uu ku diyaarsado ayuu fiirinayaa jadwalkiisa sabdiga ayuu wax ka bedelayaa waxaana ku dhahayaa diyaar waay sabdiga aa kulmayna waana kuu imaanayaa kadib uuna ayadoo kacday oo aad rabta shaqadeeda waxaa soo wacay siyong kadib waxay imaanaysaa balkoonka markay ka qabato waxuu ku dhahayaa weli hoteelka maa joogtaa tiimka soo dhaweynta macaamiisha ayaa raadinooyan qof ay tababaraan uuna waxay weydiinaysaa tiimkaas waxay qabtaan siyon waxaa ku dhahaya tiimkaas waxaa loogu talagalay inay u adeegaan dadka VIP-da ee taajiriinta ah adigna way ku fiican tahay qaybtaas marka aad dabaqa labaad hogaamisadooda tiimka ayaa joogto keliya magacaaga le u sheeg ayadaa meel fiican kuu dhiibi doonto una sheeg inaad shaqaysid gelinkii dambe kadib uuna waxay imaanaysaa dabaqa labaad waxayna ku arkaysaa qofta madaxda ka ahayd kadib uuna waxay u sheegaysaa magaceeda maamulada waxay ku dhahaysaa adiga miya siyona hore ii kaa sheegay uuna waxay ku dhahaysaa aniga bartime ayaa ka shaqeeya qaybta hoolka kadib maamulada markay fahanto way ka tegaysaa ayadoo wiish sii raaci rabto waxay ku dhahaysaa subaxda sabdiga waqti ma haysaa tiimkayga ayaa u baahan qof bartime shaqeeyo uuna waxay ku dhahaysaa haa firaaqaha waqtigaas maamulada markay baxdo uuna waxay soo xasuusanaysaa inay ballansanaayeen tahay sabdiga wayna kasoo daba ordaysaa siday uu sheegto inay sabdiga meel kale u socoto markay maamulada aragto hadan go'aankeeda uu isbedelayaa mana u sheegayso dhinaca kale tahay markuu jaamacad ka soo baxo wuxuu arday iskoolliyada ugu celiyaa casharadii looga soo dhigay iskuulka kadib meesha waxaa imaanaysa qofta ka saraysa waxayna ku dhahaysaa haddaan shaqo kugu qor ka baran subaxda sabdiga tahay waxaa ku dhahayaa sabdiga guriga u socda firaaqa ma lihi ayadana waxaa ku dhahaysaa imtixaanaadka waa soo dhawaadeen marka waxaa loo baahan yahay in maalmaha weekendiga in casharo badan ay qaataan ardayda saan xal ma ahan ardayda jaamacadleyda mas-uuliyad kale ma qaadi karaan hadda ayaa kugu qoraya ee imow taayna waxaa ku dhahayaa hadda diyaar waay waa imaan karaa kadib habeenkii ma kala gaaro tahay arday kale ayuu xaafadiis ugu tagaa casharada iskuulka ayuu ugu celceliyaa kadib qolka waxaa soo gelayso maamada wiilka ayadoo waxay cunaan u wado maamada waxay ku dhahaysaa cashar kaloo dheer ma siin kartaa sabdiga waa isbuucii ugu dambeeyay imtixaanaadka ee ka dhiman isagana firaaqa waay duhurkii kadib taayna waxaa ku dhahayaa kawna fiidkii haddaan u dhiga casharada ayadan waxaa ku dhahaysaa waqtigaas jaanis ma haayo meel kaloo aadaa kadib markuu casharada usoo dhammeeyo maamada iridii usoo dhaweynaysaa markuu guriga kasoo baxo waxaa fariin usoo qorayso uun waxayna ku dhahaysaa kabaran haddaa kulanno sabdigii duhurkii 8 saaci bar camal taayna waxaa ku dhahayaa macquul ma aha waqtigaas uuna waxay ku dhahaysaa shaqadan inaa qabto sabdig waa ku qasbanaha iga raali noqo shaqadan saayida ugu baahanahay inay iga fakatan ma rabi taay markuu ogaaday inuu kulankoodii u baaqday wuxuu usoo laabanayaa maamadii wuxuuna ku dhahayaa sabdigi diyaar ayaan ahay waan u imaan karaa wiilkaada kadib walaalkiisa ayaa soo wacay wuxuuna ku dhahayaa inaa kuu sheega ma rabin laakiin ayeeyo jilbaha laga haayaa dhakhtarkan wuxuu dhahay haddii ay qaliin gasho way ficnaanaysaa laakiin ayada way diiday inay qaliin ay gasho kistoo yar lacag way haysataa laakiin way diiday inay qaliin ku gasho waxay igu tiri haddii aa weyso scholarshipka waxbarashada ayaa lagaaga dhiibaya lacagtaas marka imtixaanaadka waa inaa natiijo fiican keentaa kadib taay isagoo daalan ayuu guriga kusoo laabanaya waxaana bilaabaya inuu iska diyaariyo imtixaanaadka kadib waxaa fariin usoo dirayso uun waxayna ku dhahaysaa iga raali noqo taayna waxaa ku dhahaya taas dhib ma lahan waxaa kusoo wici doonaa markuu imtixaanka ii dhammaado taayna waxuu bilaabaya xataa markuu baska saaran yahay inuu iska diyaariyo imtixaanka wiilkuu wax baraya markuu u yimaado inta waxa uu dhigi lahaa fadhiga ku hurdaya asaga uuna ayadana shaqada hoteelka ay sii wadatay taayna imtixaanaadka ay u bilaabanayaan maalintii u dambeysay markuu galo imtixaanka oo waraaqadiisa uu dhiibto ee uu ka soo dhammaado markuu banaanku soo baxo wuxuu fariin u qorayaa uun wuxuu ku dhahayaa imtixaanaadku ay soo dhammaadeen waxaan kugu
u imaanaya hoteelka kadib baska ayuu soo raacaya gun ayada markay shaqadeeda soo dhamaysto oo la gaaro waqtigeeda nasiinada banaanka ayuu soo baxaysaa waxayna u imaanaysaa taay oo badda agteeda ku sugayay meesha macaamiisha hoteelka ayaa marmarayeen ayadana ma rabin in la isku arko asagoo hortaagan ayaa fariin u diraysaa waxayna ku dhahaysaa iga raali noqo dharka shaqada waa awoodi waayey inaa iska soo bedelo taayna waxaa ku dhahayaa sax waxaan qaadanaya tuulada ayaga wax isku raayo waxaa gadaalka soo bacaayo siyong taayna markuu arko in dhinaceeda uu soo socdo wuxuu imaanayaa dhinacuun si aan loo fahmin wuxuuna weydiinayaa dhinac banaanka looga baxo ayadan irid laga baxay u tilmaamaysaa taayna waxaa kasoo baxaya hoteelka asagoo yaaban oo wuxuu sheegala ayuu laamiga iska istaagayaa guna ayada siyon ay soo raaceen ayaga gudaha geli rabaan gun orod ayay soo jabsanaysaa siyon waxaa ku dhahayaa adigoo darees shaqada wadatid banaanka ma aadi kartid guna ayadana warkaas kuma u soconin ayadoo ordayso ayay u soo baxaysaa banaanka taayoo sii socdo ayay ugu wacaysaa asagana wadada dhinaceeda kale ayuu taagnaay waxayna ku dhahaysaa iga raali noqo taayna warkeeda ma maqlaynin meeshana gaariyaal badan ayay maraayeen kadib fariin ayuu soo qoraysaa waxayna ku dhahaysaa mar walba waa taqaanaa jawaabaha saxan mana ku degdegtid jawaabta markaa samaynin waxba ee isdeji kadibna taay baska tuulada aadayay ayuu soo raacay asagoo saaran wuxuu dariishada ka arkayaa hayadadiisa oo alaab culus wado oo daashay wayna iska xanuunsaneed asagoo soo dogi rabo waxa uu imaanaya awoobihiisa oo gaari wato kadib asagaa ka qaadaya alaabta kadibna wuxuu saarayaa gaariga markuu arko xaalkooda go'aankiisuu isbedelaya mana ka degaya gaariga magaaladuu ku laabanaya halkaas ayaa nooga eg tahay qaybta labaad ha ilaawina muuqaalka like saartid saaxiib nagu cusub haddii aad tahay subscribe soo dheh janalka gambaleelkana furo si aysan kuu dhaafin qaybaha xiga